haye nabadaas furmudta waxay ka dhacday kabtaare waa lagu guulaystay in la aaso waxaana ka dambeysay maxaabiistii in la soo daayo dhammaan beelaha waxaa loogu qaaqan in nabadda laga wada shaqeeyo nabadda si wax loo qaato markaas sidii nabadda loo qaadan lahaa iyo sidii ciidamadii beelaha ee kale meeshii dhibku ka dhacday looga fogeyn lahaa baa laisla garan waayey dabeedna waxaan go-aan ka qaatay ciddaan u kaliyaa inay meelihii dhibku ka dhacday ay ciidankeeda ka fogaystaan nabaddana si wacan looga shaqeeyo labada dhinacna loo gurmado sida colaada loogu gurmanayay nabadda loogu gurmado intaa waa garata marka waxaa laisla garan waayey iyadoo weliba aan cabsi ka qabno dhinaca puntland dad siyaasiyiin oo laga soo daray inay ugu talagaleen colaad inay sii jintato sidaas darteed baa kolley ciidamadana halka keenay looga soo fogeeyey insha allahu maaragtay ciddii kala iga qaadanayso oo dadka kamidana waxaan leeyahay sida colaada loogu gurmanayay nabaddaa loogu gurmado marka dhibkeenana dadka shacabka oo dhan islaamka inay ugu wada gurmadaan oo ciddii dib wadaba maaragtay iyada lagaga hortago nabadana si wacan loo qaato intaas u qaadanta weyo nabadoon maxamuud xaaji axmed aadan nabadoon ayaa tahay kalshaalana waxaynu ogeyn in lagu dagaalamay oo laba beelood ay ku dagaalameen kadibna heshiis laga gaadhay inkastoo dagaalkii sii jiitamo sidaas sheegtay dhinaca puntlandna ay weli colaada sii wado markaasi ma ciidamadii beeshaada ka tirsanaa ayaa xaggan somalilan intay nabadii qaateen yimid kuwa kaloo maaragtay dhinacyada kale iyo wixii aan kala siiyey waa iga kala qaateen oo inaga asbuucan yimaadaan baa laga yaabaa iyaguna ka soo baxaan marka arrintii sidaa weeye inteebay leeyihiin tiradoodu ciidamadan beeshaada ka tirsan ee xaggan somalilan imanaya amba yimid waa nixdameeya weeye hadda intii kalena inaa asbuucana laga yaabaa inay yimaadaan oo inaan anigu wadankii ku noqday sugayeen qoladan u baaraba inaan ugu sameeyo cid kale oo iga kala qaadato haysta beelaha reer buooda kamidana waxaanu ku heshiinay inay maaragtay nabadda ka shaqeeyaan iyaguna cubaashooda dhammaan baa laga yaabaa inaan kula soo xidhiidhsiiyo marka dhammaan ciddii iga kala qaadanaysaba waxaa leeyahay sida colaada loogu gurmanaya in nabadda loogu gurmado markaa nabadoon adigu hadda halkaad joogtaa ood ka soo hadlaysaa hadda waxaa joogaa soo boqday ciidanku yeelay degan markaa markii hore ciidanku yeelay deganaan kalshaale inteeda u jirtaa hadda yeele waa soonka laatacaanood weeye soonka laatacaanood weeye meeshu hadda ciidanku degan yahay dhinacii dhibtu ka hartayna wakti horaa laga soo rarayo halkan ay yimaadeen marka ayagan buuqasho ugu yimid insha allah haddii aan dhinaca buhooda ku noqdana waxaan leeyahay cid kastoo iga kala qaadataa nabadda si waxna uga shaqeeyeen ciddii colaad ku jirtaana faraha kala baxdo maanta waa dad tilaabaar baa alla lagu kiciyey haddii wanaag laga shaqeeyana waxaan rajaynayaa inuu laga soo furan doono cid kasta oo muslima oo dadka waqooyiga degan kamidana waxaa leeyahay nabadda si waxna looga shaqeeyo nabadoon waxaanu ognahay in somalilan iyo kooxo nabadgelyo la baxay SSC ay ku dagaalamaan deegaanada kalshaale ilaa hadda ogaanta waawaantii iyo wixii ka dhacay dalkay marayaan meel waxaan bay kolley intaan ka marayaan horta magacaas waxaa weeye magac kolley markii hore beeluhu la baxeen dad si khaldan u qaatayna way jiraan laakiin waxaan hadda intaan ka warayo kolley unbay arrintaas ay u kala baxeen inkastoo dibadaha shir uga socday laakiin beelahaan waxaa lagu hesiyey maxay ahayd si khaldan u shaqeynay maxkamad gobolka ku haysa inay beelihii laga soo arkabay iyo ribahoodii ay tagaan intaasaan kolley anigu ka ogahay waxaan filayaa insha allahu dhammaan dadku inuu sidaa wada fahmi doono nabadda si nabadooneen waxaynu ogeyn inuu hoggaan u ahaa jabhaddii SSC kana soo jeeda gobolada sool iyo sanaag iyo cayn markaasi idinku SSC mowqifkii ay qaadatay ahayd inay ka madax bannaan tahay somalilan iyo puntland idinku nabadda unbaydun qaadateen mise mowqifkii kale ahaa inay somalilan diidan yihiin kawad la qabtaan dhammaan horta gobolkan cayn sidaad og tahay sida wareysig hadda ka hor baa siiyey ma garata meelaha meesha la yidhaahdo gobolka cayn ka soo jeeda dastuur bulshadu samaystay waxaa kamid ahaa gobolka cayn la yidhaahdo in puntland iyo somalilan labadaba laga
هي موقف كاسان قال مركي هوري التصوير عالميا ووها وإن قرآن النسوغي قرآن النسوغي من مركي اللقبيشي كبعد هذه بلا صوت شنه وعنوش أغني وعنوش أغني الحديث قرآن بلا سيء الشيء بدي هايلها الشمالي لأن لشت انتشتي ومركي هوري الشرعي غاس مارتي أحدي أكد شينا يقول إلى مارتي هايلو دي سيء مدريشيا وشمالي يقول لا لولا مرتي دول كوحاودو وحكوية لقبلنا مدلو تبقى مكتسنا قبل كبرتي هوري ما دام بلا الشرعي بدي شمالي لأن هايلو دي لشت انتشتي فما وحي يسكو برارو تيالينا لسو لقران ولسو إلا مارتي هايلو دي يليشيا هدي كلنا الحق صورو هايساك قبل غلالان ذا مركي اللقويشي لكن بي شنا وحاك تريبنا دي بلا قبل كعان خلصو قش السياسة دي هايلها شمالي لأن إلا شرعيو وسوى علوليشي أنا بدي شنا وشاكي ما بدون موقف كاغا adiga dhinaca Somaliland maxaad ka aaminsantahay dhinacaas Puntland SSC iyo Somaliland iyo ma la socotado horta gobolada waa wax kale waa siyaasad ku hadallo laakiin dhulkan British Somaliland dadkii la oran jiray elective ahdigii uu horeeyay tafsiirka Somaliland aniga beeshayda ayaa sanadu ahaa marka anagu waxaan nahay odayaashii dhaqanka kamid ah Somaliland Ingiriiska wax la saxay hadal anagu waxaan kamid nahay dalka Somaliland sidaas ayaan ka aaminsanahay فكر خلصنا إن ذكر السيارة مرة وجعلنا قولنا نرجع نجد حيث قولنا نوكا نجد حيث مركز ذكر السومالي الآن قولنا نبقى السومالي الأوي مركز سياسة الآن أقول للوك شيء ذكر ما يأخذ أمر لك خبر هذا وقته حتى ذكر كيني كذجن وعلى نجا السومالي لا يقول على مرة ما كان حسن ذا شيء قال لي قولنا السومالي لا قولنا نقول لا بس أنا نمك الزجمان مجاي وجع الشعب ذكر شو الأشكال لا مشي قال وواحد شيء ذكر كتب سلطان يزمر بوق يلا وحشية قال لي بوتلان مركوا سياسة السمي لكن نوكري ذكر لي والشمالي الأوي عاقل نبضون هذا يا ذو مهتفن